السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada dhamaantiin meel walba joogtiin iyo xilli walba ku taaba kusoo dhow YouTube channelkeena MK Skills 1. بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته، وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى. isku soo noqod wanaagsan dhamaantiin waa mar kale iyo muuqaal kale haddii tahay markii ugu horeysa aan soo boqoto fadlan soo dhow subscribe halkan sidoo kale waxaan ku sheegaa inay kusoo biirtid barteena Telegramka ee MK Skills 1 linkigana waxaan ku dhigi doonaa qaybta hoose ee commentiga ayaan kugu bin gareyn doonaa halkaas ayaa ku soo raaci kartaa haddii aad u baahan tahay ii sheeg maxaa la yiraahdaa setup inaa heshid markuu ii sheeg maxaa la yiraahdaa setup-ku ready iyo insha Allah wax walba oo markaas maaragtay maandayda wuxuu markuu suuq furmo insha Allah aan trade gareynayno wixii update oo dhan halkaas ayaan ku soo diri doonaa haddii ay baa awood la idmo sidoo kale waxaan jeclaystay maanta in aan muuqaalkan aan uga hadalno waxa la yiraahdaa falanqaynta isbuuca maadaama maxaa la yiraahdaa maalin walba oo maaragtay isniina ilaa jimcaha ay tahay maxaa la yiraahdaa isbuucaada inaad information iyo warbixin ah haysid mise technical ahaat mise fundamental soo sidaa daraadeed insha Allah waxaan iskula fiirin doonaa wax walba oo maaragtay technical iyo fundamental ah sidaan isbuuca soo diyaar garoobo iyo sida aad ugu sameyn kartid isku soo noqod wanaagsan mar kale insha Allah casharkeena ayaan horay u bilaaban doonaa soo dhawaada dhamaantiin meel walba joogtiin haddaba marka horeysa rabtid inaad falanqayn sameysid waxaa qasab ah qof walba oo maaragtay inuu sameeyo saddex qodob inaad raacdid ayaa horta ugu muhiimsan waa sida ugu fudud oo maaragtay wax ku sameyn kartid aad fahmi kartid saddexdaas qodob haddii aan ku kala sheego wax walba waxay kala yihiin saddexdoodaas ku horta waxaa qasab ku ah inaad fahantid waxa la yiraahdo jihada suuqa maaragtay meesha suuqa u socdo iyo meesha maaragtay lacag u jihaysan tahay kadib waxaa heli kartaa mataqaanaa direction aad maaragtay u fikirtid oo maaragtay warbixin badan aad ka heshid iyo suuqa inaadan maaragtay caqabad badan kala kulminin intaas ayaa horta marka koowaad qofka la rabaa inuu maaragtay baleenkiisa koowaad uu ka dhigo sidaa daraadeed haddaba si aan u sameyno jihada guud ee suuqa step by step ayaan ku tusi doonaa waxba ka welwelin sidoo kale waxaa qodobka labaad uu asaguna uu yahay maxaa la yiraahdaa waa inaad systemkaada wax ku nidaam ah raadisid tusaale aan maanta waxaan fiirin doonaa falanqayn doonaa listiga lacagihii ugu jiro USD USD CAD JBP JPY CAD JPY iyo Gold iyo USD JPY haddaba isbuucaas dhan intaasaan dhex wareegaa lacag kale ma raadin doono saasita hadda waa badan yihiin markaas u fiirisid laakiin dadka qaar baa hal iyo labo maaragtay beer kaliya garaaca laakiin maadaama anigu ahay qof waqti u hayo suuqa maanta dhan rabo inuu fiiriyo taas ayaa maaragtay lixdan lacagood maaragtay inta badan number 1 iga dhigaysa inaan mar walba ay la socdo soo mid hadaan 2-3 fursad ka waay saddexda kale ayaan fursad ka helayaa sidaas way macnaheedu mar walba oo beeriskaadu ay yar yihiin waxa waaye waa ka information fiican tahay dadka kale qof arkaysa 28 ka beer subaxdii wada dul maray that's good markaad cilmi baranaysid aad bilow tahay laakiin markaad suuq muddo ku jirtid oo arki doontaa dhowr lacagood ayaad baran doontaa ayaad qabsan doontaa taasna qofka iyo dabeecadiisa ku xiran tahay kuma xirna cilmi gaar marka insha Allah soo dhawaada mar kale haddaba waxaanu sameyn doonaa waxa la yiraahdo ii sheeg inaan jihada suuqa fiirno jihada suuqa insha Allah hay'ada muuqaal faahfaahsan horta cashar ahna waa ka soo sameyn doonaa laakiin haddana insha Allah waan idin fahansiin doonaa jihada dadka inta badan waa ku wareersan qaarkood daily ay tagaan ay suuqa ku fiiriyaan qaarkoodna bil qaarkoodna hour qaarkoodna 1 hour soo marka inaad adigu saas sameysid kaama dhigayso inaad maaragtay trade fiican helaysid laakiin waxay ka dhigaysaa nin information fiican haya oo ka maaragtay warbixin fiican qof kale marka tusaale marka daily saan oo kale u joogtid waxaa la rabaa inaad meeshaan oo kale hadhootidii isha ku haysid oo maaragtay leenkaada saartid oo aadayd meeshaan waa meel cajiib ah
beri markii la tago iyo saa dambiya intay rabto waqti ha qaadato markii la tago waa meel daily zone ah oo kadibna suuqa laga soo celin karo. maxaa kaloo daily zone kan inuu wax jiriya ku cadeynayo waxaa ku sii cadeynayo dhaqaaqan markiisa hore ka yimid waxa ujeedaa inuu zone kan soo jibiyay sidoo kale zone kan kale isna soo jibiyay sida daraadeed meesha marka lagu noqdo waa war la'aanba markii la tago meeshan in la soo noqon doono la soo daadan doono yaad ogaan meeshii lagu istaagay laakiin waa ogtaaba in la soo noqonayo sababtoo marba suuq zone hore aduu ka soo jijibay opposite ka zone ka markii la tago meeshaas waa meel xamaasadeeda wadata oo maaragtay suuqa maaragtay wax laga sameyn doono sida daraadeed daily-ga sidaas ayaa information u haysanaa. okay forward-kaada tagaysaa asagana waa ku sii qiimeyn kartaa. forward-kaada markaa tagtid waxaa halkan uga jeedaa inaad ujeedid maxaa la yiraahdaa trend kale oo asaguna ab train ah oo korkan u socdo waa kana hadaa si fiican ku tuso waa trading kan kale inuu asaguna kor u socdo oo asaguna korkaas u jeedo. soo marka sidee waxaan isku waafajinaysaa waxaa sameynaysaa marka hore waxay qorsheen halkan ay meesha aan ku sheegay on kulahaa waa meel markii la tago warbixin maaragtay sida oo aragtina ogaatid ay muhiim tahay. soo anaga inagee marka maadaama aan day trader nahay oo maalinkaas aan bibis ceyrinayno forward-kana waa ujeednaa inuu weli laakiin isku sii jiro laakiin soo 1 hour inagee 1 hour ka si fiican wax ugu kala aragno. soo 1 hour keena ujeednaa 1 hour keena intaan daily-gaas kor la gaarin waxaa ujeednaa korkaana u koreeyay suuqa waxay noqonaysaa 1 hour higher high. soo hoostaana handale haydan waxay noqonaysaa hoosti 1 hour korkaas hoostiisii ayaa halkan handale noqonaysa oo higher low ah sidoo kale halkan handale waxay noqonaysaa higher high oo korkiisii ka horeeyay oo noqonaysaa oo higher high ah. soo halkaana maxay noqonaysaa hoostan hoostii kasii hooseyso kale ay haydan noqonaysaa allo yaa beerka u dhiman idan hoostan ka sii noqon already labadan heshay already waa confirm ba trend-gaad waa waxa ujeedaa inuu 1 hour-ka oo kiikiyay up trend. soo suuqan maxaa ka macquula dhigi kartaa suuqan biri isniinta kale markuu furmo hadoo Allah idmo waxaa arki kartaa meeshan inay tahay meel maaragtay demand ah oo suuqa laga kicin karay waan aragtay in suuqa laga kiciyay waan aragtay suuqa in laga kiciyay sorry rectangle ayaa rabaa yeah. soo waxa ujeedaa halkan inay tahay meel suuqa markii la yimaado laga kicin karay waxaana ku cadeynaya waxay ahayd 1 hour-ka marka aragtay candle-kan sell-ka oo yimid kiisaan ku xigo oo buy-ga ah oo halkan ka kormaray candle-kan kale waxaa sugi kartay in waxay hoostan loo soo noqdo 45 iyo 30 hadaa tagtid waxaa arki kartaa in candle-kan markii korkan la tagay hoostan loo soo noqday hoostan markii la yimidna korkan uu ka sii kacayo kale halkaan oo kale inuu ahaa entry walow entry-gaadu banaanin oo meel dhexa ahaado ku xirnaado laakiin waxa ujeedaa in halkaan oo kale entry-eed okay lacagtan waa DXY sorry soo tusaale kale waxa ugu tusaale qaadan kartaa lacagaha dollar kula socdo kale markii saan oo kale dhacdo marka halkaan oo kale entry bay ahayd. soo waxa sugeynaa library oo kale in again suuqan uu meeshan hoose yimaado oo halkaan hoose inoo yimaado kadib markuu halkaan inoo yimaado kandaladan socdo oo halkaan naxa oo meeshan lagu keenay trend-ga in ayaga maaragtay la dhameeyo oo content trend-gooda la asturo kadib si aan buy oo isticmaalno oo buy aan u qaadano. soo buy-gaadaas wuxuu noqon karaa meesha target gareynaysid halkaan zone-kan oo kale waa TB uu ku noqon karaa sidoo kale halkaan oo kale waa ku noqon karaa sidoo kale halkaan oo kalena waa ku noqon karaa. soo adi mar walba waxay ku xiran tahay gidaha riski ka soo horjeeda
inaad ka fikirtid oo iska ilaalisid. So sidaa daraadeed DXY hadda waxaan ku sheegay inay meeshaan markii la tago meel xamaasadeeda wadata ay tahay, laakiin inta kasoo horeysana aad buygan usii raaci kartid oo fursad weli buy ay ku jirto. sidaa daraadeed maxaa la yiraahdaa USD iyadana waa opposite-ka mise cagsiga DXY oo sidee ku noqonaysaa. iyadana markaa daily-ga tagtid waxaa arki kartaa adoo oo maaragtay waxba isdhibinin in halkan ay tahay meeshii aan ku tusayay oo korkaas oo ka ahayd. aan ku lahaa waa meel xamaasadeeda wadato oo suuqa waa meel hadhootidii markuu tago laga soo celin karo. Okay, wixii ka dambeeya fawarkan waa tagi kartaa, waa sii fiirin kartaa, information fiican waa ka heli kartaa. anu laakiin markaan intaas iyo kale confirm gareeyo daily hadaan wax ku fiican ku arko fawarka waa imaada, laakiin hadaan daily wax fiican ku soo arkana 1 hourkeygii wixii aan ka trade gareeyo ayaan imaada. So sidaa daraadeed waxaan u jeednaa saan kuu sheegaba inuu suuqan asagana sidii kii oo kale uu yahay. maxaa la yiraahdaa ii sheeg suuq down trendia oo jihadiisu ay caddahay, walow xitaa halkan xitaa trendi kale lagu soo socday markaas si fiican u fiirisid. oo haddana waxaa rajeynaysaa isla sidii oo kale markii la tago in tooskan meeshaan la imaan karo. Okay, waxaa dhigi kartaa asagana markaa sida ayaan uga faa'iideysan karaa hadduu maaragtay fursaddan helo. wax kale ma sameynaysid. iyadana waxaa sameynaysaa trendigaadan waxaa ujeedaa inuu down trend yahay. So sidaa daraadeed halkan waxaa ujeedaa in suuqa horey looga soo daadiyay markaan. So markaan dale waxaa sugaysaa in again uu meelahan si fiican noogu soo noqdo ilaa suuq biri markuu maaragtay habeen dambe uu isfuro hadduu eeba awoodda la idmo. xilligan aan muuqaalka Dubai waa maalin axada, laakiin insha Allah waxaan rajeynaa markuu halkan suuq ku noqdo candlestick-yada meeshaan tagi doono ayaan akhrin doonaa say noqdaan. kadib markii meeshaan la tago waxaan eegi doonaa qaabka loo tagay iyo sida loo dhameeyo shumacyada halkan tagay. marka ayagaas la dhameeyo counter trend ahaan ayaan fursad sell ah ka fiirin doonaa. hadduu aan la idmo sell oo halkan ah ilaa maaragtay 30kaas bib. kadib 30ka bib markaa targetkaas aan helno, targetkeena weyn kan waaye, laakiin 30kan bib markaan helno tradeyadeena waa manage gareyn doonaa. So trade managementigu waa cilmi gaar asagana u baahan inaad fahankiisa oo aad u yeelato iyo maaragtay ku dhabar adeegiisa iyo maaragtay aad ugu shaqeyntiisa. So insha Allah asagana casharaan waa ka soo gudbin doonaa. So asagana markaa 30ka heshid trade-ka waa manage gareysanaysaa. si markaa manage gareysatidba ama 50 xir ama maxaa la yiraahdaa ku wada furnaado, waxay ku xiran tahay mar walba qaabka aduu processka iyo systemka ku degan. So targetkeena koowaad kaas waa weyn, laakiin halkaana waa meel aan ognahay in xamaasadeedu wadato suuq markuu tago kugu soo noqdo korkaas uu soo tago kadib uu soo noqon karo. So marka halkan la tagaa ognahayba already waxa waaye profitkeena waa kala manage gareynaa si uu saxdootida aan caqabadba ula kulminin. Okay, USD iyadana sidaas ayaa insha Allah laga tabanayaa, laga filan karaa. So marka iisa shock ku noqon wax walba isbedelaan sababtoo suuqaan uga gacanta ku meeyno wixii markaas aragno ayaan candlestick ahaan taan oo akhrinaa. kadibna candlestick-gaas ayaan la macaamilnaa sida uu maaragtay information oo si waxa laga yaabaa inuu halkan saan rabno soo noqonin uu korkaan oo tago meeshaan ayaa laga yaabaa inay noqoto meesha aan fursad ka heli karno. maybe inaysan noqonin hayadana laga yaabi karaa ay noqoto halkan. So mar walba waxay ku xiran tahay si aan maaragtay suuq meeshaan iskaga dhameystiro iyo tan ka rabtaa uu iskaga dhameystirayo ku xiran tahay. So sida daraadeed trade markay diyaar noqdaan kala wax soo dhigi doona meesha la yiraahdo Telegramka gaar ahaan barteena groupka MK Skills 1. So tag ku soo biir insha Allah wixii update haddii aad tahay qof maaragtay suuqa si real ugu trade gareey xagaas ayaad insha Allah sidab oo maaragtay isdiyaari oo maaragtay Ingiriis u baahan soo dhigi doonaa xagaas ayaa ka faa'iideysan kartaa hadduu eeba awoodda leh oo idmo soo dhawow. marka
sidoo kale lacagtaan fiirinayno waxaa ka mid ah USD card waxaa waa hay'adana saan kuu sheegay waxaa la yiraahdaa waa jihadeedu waxay u socotaa inay buy isku bedesho maadaama lacagaha maaragtay dollarka markuu DXY ay maaragtay buy ku tusinayso lacagaha u horeeyo dhan ay buy yihiin kuwa u dambeeyana ay sell yihiin USD lacagta u dambeeyso sidaa daraaddeed USD card waxaa dhacaysa iyada official ma ahan buygeeda waxa ujeedaa korkaan oo halkaan oo ah korkaan iyo korkeedan kale waa wada siman yihiin sidaa daraaddeed marba haddaa aragtay meel saan camal u wada siman micnaheedu waxay ka dhigan tahay waa meel u baahan in maaragtay liquidity yaalo oo u baahan in hay'ada la jabiyo sidaa daraaddeed meeshaan waxaa laga yaabaa in maaragtay saas loo jabiyo si walbay noqoto hay'adana waa la macaamilaynaa sidoo intriga inoo siiso ayaan arki doonaa hadduu eebaa awoodda leh oo idmo iyadana waxaan fiirin doonaa laba mid in korkaan yarka yariiska la jabiyo oo halkaan ah mise in halkaan hoosta ah mid ka mid ah labadana loo jabiyo markaas ayaan ayadana inaan maaragtay trade garin aan go'aan ka gaari karnaa haddii halkaan korkaan yariiskan loo kala jabiyo fursadan buyga ah oo ilaa maaragtay halkaan kore waa ka faa'iideysanaynaa ilaa 40kaas bib haddii aysan noqonin oo maaragtay asagana ay noqoto maxaa la yiraahdo isagana ay noqoto ishaag in halkaan la jabiyo hay'adana waa ka faa'iideysanaynaa ilaa iyo hoostan kale oo iyadana 60 bibs mid walba qaabkii labadan uga dhex baxdo maaragtay ayaan qiimeyn doonaa oo akhrin doonaa marka iyadana waa trade kale oo macquula oo DXY-da aan maaragtay dollarka kaga faa'iideysan karno hadduu alleedmo sidoo kale waxaa jirto lacagta la yiraahdo JPY iyada xaaladeedu waa correction aad u dheer bay ku jirtaa oo halkaan hoosta ilaa halkaan ay ku jirto iyo halkaan kore oo sidoo kale iyadana ku jirto ayaan u jeednaa waxaan sugaynaa in korkaas ayadana sidii maaragtay USD card si lamida in korkaan looga baxo oo maaragtay korkaan la jabiyo kadibna loogu soo noqdo meelahan aan entry ka raadino ilaa all the way korkaasna aan fursadan aan ka ceyrino aysan ahayn in hoostan la jabiyo maaragtay soo noqoshana siina yaraan ka helno kadibna ilaa hoostan aan ka yara ceyrino halkaan hoose anagoo targetkan kalena maaragtay isheeg zonekan kalena aan ignore gareyneynin macquul tahay in hay'adana meel suuqa iska bedeli karo ay noqoto wax walba ma ka hordhacayno iyadana waxaan fiirin doonaa sidii ay maaragtay xaaladeedu inoo qiimeyso xaaladeedu ay noqoto ayaan ku qiimeyn doonaa sidoo kale waxaa ka mid ah lacagaha aynu maaragtay isheeg listiga inoogu jira JPY iyadana waa lacag kale oo aan isticmaalo oo aan trade gareey maadaama dollarku ugu badan yahay lacagaha dollarka ay euradu dollar la socoto USD kan la socoto JPY iyo JPY-na waa lacagaha JPY-ga ayagana waa dhaqaaqooda fiican sidaas ayaan listiga ayagana ugu soo darsadaa oo inta badan u isticmaalaa gaar ahaan JPY ha ahaataba maadaama JPY ay marka qaar lacagta Canadianka ay dhaqdhaqaaqeedu iska yaraado laga yaabo laakiin JPY masha Allah number 1 waxa waaye lacag qatar oo aad u fiican waaye qofkii bartana oo information badan ka heli karo oo maaragtay systemkan aad ugu shaqeynayso hay'adana JPY waxa sameynaysaa halkaan ayaan u jeednaa in hay'adana xooga xamaasadii ku jirtay laakiin waxa ugu dambeyn u jeednaa in la jabiyay halkaan waxa jeednaa in la jabiyay oo korkaan laga dhex baxay handale fake out ay noqon kartay oo marka halkaan laga baxay handale waxa jeedaa in hoostaan lagu soo noqday ugu dambeyn iyada waxeedu waa wax u malaysa inay dhow yihiin hay'ada waxaan sugaynaa one more time in korkaan la jabiyo one more time korkaan la jabiyo oo kandaladan ay saas uga dhex baxaan kandalka buyga inuu korkaan ku xirmayaan sugaynaa kadib nagasti waa ka faa'iideysan doonaa hadduu eebaa awoodda la idmo
insha Allah marka ayadana saasaan uga faa'iideysan doonaa 35 biib camal ayaanu ka cayrin doonaa oo ilaa halkaas ah maaragtay ilaa korkaas ah 30 biib ilaa 34 biib wadbanaasan 35 biib kadibna halkaana waa meelaan iska eegi doono sababtoo ah zone walba markii la tago ma ahan in qasab lagu dhaafayo waxay u baahan tahay gurguris iyo maaragtay in si inta la tago kadib maaragtay la maslaxeeyo ayr lagu jibiyo hadduu suuqu maaragtay news iyo wax jibinin iska mid jibinayo gidaar walba suuqu soo marka halka la taga idina waa la macaamil doonaa inaan maaragtay tradedeena manage gareyno oo maaragtay sida ugu macquulsan aan sameeyno insha Allah tradekeena kale waxa kamid ah USD JPY iyadana sida maaragtay GBP JPY ayaa waxaynu sugaynaa iyadana in maaragtay suuq uu ka dhex baxo waxa la yiraahdo correction kan oo suuq ku dhex jiro ayaan sugaynaa inuu horta meel uga dhaco kadib ayaan iyadana qiimeyn doonaa soo waxa ku sii fogaan mayno falanqeyntaas kale aan ugu filnaato iyadana insha Allah waxaan sameyn doonaa hadii wax ka soo diyaar noqdaan waxaan soo dhigi doonaa barteena Telegram iyadana xagaas kala soco soo wax trade walba isku diyaari xilliga uu noqonayo diyaar ma garanayno laakiin waxaan inta badan trade gareeyaa London iyo New York soo labadaas xilliba barteena Telegram ku isha ku hay trade ayaan soo gelin doonaa maalin walba haduu la idmo ishaag halkaas ku soo biir si aad aduguna wax uga faa'iideysatid maadaama aan wax walba aan jecelaystay inaan si free aan inkula share gareeyo sidoo kale waxa kamid ah lacagaha aan listiga ku jira dollarka gold dollar ma gold waxa u jeedin candlekan oo ahaa candlekii maaragtay maalinkii Jimcada furmay habeenkii labada habeenimo soo istaagay ayuu wali u taagan yahay sababtuna wax kala ma ahan waxa jiray waxa la yiraahdo maalmaha gaalada Good Friday camal oo maalmaha Easter-ka ay u dabaaldegayeen soo sida daraadeed soo mister qaajineen ilaa Jimcadiiba talidii maxaa la yiraahdaa lacagaha kale oo dollarka la socda ayaaba dhaqdhaqaaq yar lahaa inkastoo suuq dhanba dhaqaaqi jirin Jimcadii laakiin asaguna saas ayuu u soo istaagnaaba oo wali ma isbedelinin ma dhaqaaqinin soo asagana insha Allah waxaan eegi doonaa maalinka Isniinta asagana sadabkiisa xagga ayaa idin soo gelin doonaa markii maaragtay wax isbedelaan hadduu baawada leedmo oo fursad fiican uu nasiyo haddii aynu ku noqono qoraalkeena yarka oo halkan inoo yaalay qoraalkeena yarka aawe waa kan waxaan ku yiri qodobka labaad waa in systemkeena nidaamkeena aan keenna iyo in jihada suuqa aan soo cadeena soo labadaas waa soo helnay jihada suuqana waan falanqeynay inay maaragtay suuq qayb meesha u socdo kadibna systemkeena wax ku nidaam ah lacagaha ku mid ka oo beeriska waan fiirnay iyo qaabkan ugu isticmaalayno iyo sanitary ugu galeyno insha Allah waa dareemi karaa inay faahfaahsaneen laakiin ayadoo faahfaahsan marka qofku entry-ga qaadanayo iyo si fiican u si fahmi karaa insha Allah wixii entry-yana waan ku sheegay bartaas Telegram ayaan soo dhigi doonaa soo qodobkeena saddexaad oo ah newska sida asbuuca u ogaan karnaa easy waxa tagaynaa Forex Factory-geena tagaynaa kadib waxaan eegaynaa maxaa la yiraahdaa maalmahaas waxa jira iyo maaragtay information ka dhan halkaas ayaan ka arki doonaa soo saan ku sheegay baad maalin Axad waaye Sunday 31 soo waxa u jeedin maalin suuq furan yahay ma aha laakiin Monday-da ka bilow Monday-da waa tana lacagaha AUD-da dhan bank holiday ku jira soo lacag AUD la socota dad trade iska ilaali tusaale dad baa jecel AUD USD oo kale soo maalinkaas maxaa la yiraahdaa dhaqaaq fiican lacagta AUD USD oo kale kama jiri karo AUD NCD lacagaas inkasta trade galeen laakiin dad baa trade galay ayagana sidoo kale marka lacagaha maaragtay ki jirin oo dhan ay noqon kartaa ishaag yaa kale CHF lacagta Swift-ka ayadana waa tan bank holiday ayaa ka jira maalinka maxaa la yiraahdaa Monday-da sidoo kale Euro-da maxaa la yiraahdaa waa tan ayadana French bank holiday-dana ka jiro sidoo kale Euro Germany bank holiday ka jiro sidoo kale Euro Italy bank holiday soo lacagahan Euro dhan ayadana waa saameynayaan Germany iyo Italy iyo waxaan oo maaragtay ka jira maxaa la yiraahdaa public holiday
bangiyadan oo fasaxa ayagana waa saameynaya soo lacagta euro CHF maarta AUD wax dhaqdhaqaaqa ma yeelan doonaan. Okay, maxaa kaloo jiro manufacturing-ka BMI-ga waxaa jiri doona isagana at 5 ayuu jiri doonaa hadduu Allah awoodda la idmo. So kuwan all day waa maalinkaas dhan ayaa waxaa jirto ii sheeg maxaa la bangi holiday. So dhaqaaq badan suuq maalinka isniinta dhan ma lahaan doono. So lacagaha dhan xitaa wuu saameyn doonaa. Waxaan eurada iyo waxaan kugu qoran AUD lacag ayay ku lamaansan tahay. So lacag isku lamaansan yihiin dhan inta badan euro lacagteeda haddii la waayo maxaa la dhahaa AUD la waayo meesha wax badan oo jiraya ma jiro. So inkastoo doolarka uu asagoo kasoo bixi doono BMI-ga uu kasoo bixi doono at 5 galabkii waaye. So isagana isha ayaan ku hayn doonaa sida la filayo. Waxaa waaye last wuxuu ahaa 47.8 laakiin sida la filayo 48.5. So waxaana rajeynaynaa inuu kordhi doono. Marka waa isbedeli karaan wax walba waa saadaal leh waxaan. So insha Allah wixii information kasii dheerada u baahanta halkan ayaa ka akhrisan kartaa. Waa kana halkan ayaa kasii akhrisan kartaa. wax kaloo dheeraadana waa sii raadin kartaa. Marka iyadana saas ayaa jirto la soco. laakiin maalinka isniinta dhaqaaq badan suuqa dhan ma jiro. All suuqa dhan wax dhaqaaq fiican ma lahaan doono. So sidaa daraadeed waxaan ku dhihi lahaa maalinka isniinta xilliga New York waxay noqonaysaa galabtii camal suuq soo fadhiiso. subaxdii hore dhan dantaada ka raaco acmaashaada kale ka sababtoo dhaqaaq badan ma jiri doona anaa ku dhahay. So sidoo kale Tuesday-da marka aragtid waxa ujeedaa wax public holiday Tuesday-da ma ku jiro. waa kaasa. So Tuesday-da waa toos shaqo gali kartaa morning-kii iyo galabkiiba. So New York iyo London-ba insha Allah waana maalin fiican aan rajeynaa inay inoo noqon doonto oo aad aan biibis badan noqon doono isla wada trade gareyn doono. sidoo kale maalinka Arbacada oo kale sidoo kale iyadana ma jiri doono wax la yiraahdo ii sheeg news waxa la yiraahdo bank holiday ma jiri doono. laakiin news badan ayaa jiri doono oo ka mid yihiin maaragtay ii sheeg non-farm employment change-ga oo maaragtay loo yaqaan ii sheeg NFB-ga ii sheeg ayaa jiri doono. sidoo kale waxaa jiri doono ii sheeg BMI-ga service-ka oo Mareykanka ayaa jiri doono. maaragtay sidoo kale waxaa jiri doono ii sheeg CPI-ga jiri doono oo lacagta Swift-ka. sidoo kale waxaa jiri doono maalinka Khamiista employment claims-ka. marka insha Allah waxaa la yiraahdaa waxaan arki karnaa sidoo kale qaabka news-ka loogu trade gareeyo. inkastoo muuqaal hore ka soo geliyay oo maaragtay ii sheeg sida loogu trade gareeyo sida maaragtay loo dhigto maxaa la yiraahdaa ii sheeg trade-ka la iskugu diyaariyo aan muuqaal ka diyaariyay. haddana insha Allah ka daalimayno hayadana maadaama mar walba qof cusub oo nagu soo biirayo hayadana insha Allah waa soo sameynaya oo waxaa sameyn kartaa maalinka Jimcada oo kale ayaan hadduu alla idmo. maalinka Jimcada waxa jiro wax kale ma ahan waa kana already waa taagana Jimcada waxaa jiro employment change-ga iyo unemployment rate-kan waxay inta badan soo baxaan maalin walba oo Jimcaha 9 saac bar marna 9 saac marna 10 saac bay gaaraan marna 9 saac bar ii sheeg bil walba isbuuc oo hore. So Mareykankana waa ka soo baxaan Canada-na waa ka soo baxaan. So xogta shaqadii shaqaalaha waaye. So xogtaan markay soo baxdo aad ay suuq isku bedelaan isla second-kaas waa isbedelaa. marmar waa jira second-kaas uu isbedelin haddana laakiin markii wax yar kadib suuq waa ka dareemay oo dhaqaaq badan oo fiican oo zaa'ida ayaa handala imaanay. So dhaqaaqaas ayaanu gaadhnaa mararka qaar maadaama laga yaabo in maalinka Jimcada subaxda hore kale masjidka iska gashid iska soo cibaadaysatid danahaada iska soo qabsatid. So galabtii waxa rabtaa sheekayro isku dhamaanaysa isla waqtigaas ay gashid oo dhag ku anfacayso. marka waxa sameynaysaa maxaa la yiraahdaa lotkaada half kamida lotka isticmaal jirta half kamida ayaad markaas isticmaalaysaa. waxa sameynaysaa trade-kaada waa sii dhiganaysaa kadibna buy sell-ka waa wada dhiganaysaa
kii uu ku furo markaas oo private-ka maahan kan kalena waa ka tuuraysa meesha oo xiraysa kan kale ayaa furaysa so insha Allah ayadoo practical waxaan sameyn doonaa maalinka khamiista ayaan sameyn doonaa maaragtay si jimcada oo sameysid qof walba uga faa'iideysteen insha Allah mise waxaan sameyn karnaa kale inaan si live zoom aan isku soo dirno aan si live aan u wada galnaa ayadana waa sameyn doonaa hadduu eebaa awoodda la idmo marka insha Allah soo dhawaada oo mar kale iyo muuqaal cusub waxaan idin rajeynayaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash haddii aad ka heshay falanqayntan aad jeclaysatay inaan marar badan oo kale oo dambena kula soo gudbiyo insha Allah qaybta commentiga ayaad maaragtay fariintaada igula reebi kartaa